soo sharaxnay oo ahaa barwaaqaysan oo aan naga dumin waayo qodobka saddexaad aan ka hadlayna marka casharkeena maanta ugu horeeya insha Allah wuxuu noqon doonaa dhaqanka qodobka dhaqanka leh dhaqanku waa ogtihiin waa hooyada nolosha waxaad ogtihiin in qofka dhaqankiisu ay sawir ka bixiso asaga qiimihiisa haddaan caaw soo jirto madax oo meelahan soo banneeyo oo funaanad xun oo geesaha ka jaxan soo qaato oo sarwaal jaxjaxan oo jeemis oo aad moodi in sakiin lagu jaxjaxay aan soo xirto ya oo aan dadka soo dhex galo muuqaalkaas wuxuu bixinayaa waxaan macno lahayn halkaa macnanka sawir baan dhiibay sidoo kale waxaan haliyey dhaqankii labiskan haliyey sababta cawladeedii waa muuqata wax jaxjaxan baan qabaa anigu waxaan hab loo maaragtay ii sheeg bulshadaan ku dhex galo macnaha ii samaynaysa anigu ma garanayo marka dhaqankii labiskan haliyey markaasaa sameeyo yaan xumeeyey sidoo kale meel bulsho joogta ama qof haddaan hadal xun ku idhaahdo waxaa weeye dhaqankii hadalkan luminaya sababtoo hadalku dhaqan buu leeyahay wanaag buu leeyahay labisku dhaqan buu leeyahay shaqo kastoo qabanaysa dhaqan bay u baahantay marka dhaqanku waa bayskii nolosha qof walbana waxaa lagu qiimeeyaa sida uu dadka ula dhaqmo haddii qofku wax wanaagsan qabto waxaa la dhahaa hebel si fiican buu u dhaqma hadduu wax xun la yimaado waxaa la dhahaa hebel dhaqan xun uu sameeyey ama si xun buu u dhaqma taasna waxay sawir ka bixinaysaa ficilkaaga iyo hadalkaaga iyo sharaftaada iyo qiimahaagu sida adigaa u soo bandhigtid yaa dadku u qiimeynaya marka dhaqanka marka la yidhaahdo dadka Soomaalida waa isku wada dhaqan baadiyan ka nimid dhaqan wanaagsan oo xishood leh oo ixtiraam leh oo maaragtay ii sheeg xurmo leh yaan ka wada nimid laakiin markii la kala baahay oo Soomaaliya afarta gees la kala degay xoogaa iyadoo Soomaali la wada yahay deegaankii la kala degay environmentigii saameynta yeesheen waxaad moodaa xoogaa farqi dhinaca guurka marka la yidhaahdo dhaqanka inuu soo dhex galay oo qolo ama qoys ama deegaan ama meel environment Soomaali degan tahay waxyaabo ceeb u taqaano yaa laga yaabaa deegaan kale inaysan ceeb la ahayn oo wax caada ka tahay waana meesha Soomaalidu ka tiraahdo waxaad ceebta u taqaan nin bay caadadiisa tahay marka waxaan rabaa in la fahmo oo labada qof ee dhisaysa qoyska iska fahmaan dhaqan ahaan inay iska fahmaan qofba qof kale wuxuu ka aaminsan yahay sida qoyska waxa la yiraahdo sababtoo labadan qof markay rabaan inay dhisaan qoys waxay abuurayaan shaqo reer cusub waxay abuurayaan xiriir cusub ninba ninka kale qoys buu leeyahay waxa isu imaanay labadii qoys halka waxa ka abuuraya network ama xiriir cusub oo dadan hore isu aqoon dadkaasi maxay horta ka mudan yihiin muxuu ku arkaa seebuu u fahamsan yahay dadkaas iyo xiriirka iyo waxa ka dhalan doona qofka kaleeto wiilku sadaq buu yeelan doonaa sadaq buu yeelan gabadhna waa sidoo kale xidid bayaan wax leeyahay xidid Soomaalidu tiraad xidid ma kan jiri ku jira xidid waxaa la yiraahdaa qofka dadka aqrabada u ah ee ka yimid xagga guurka aabaha hooyada walaalka abtiga ina adeerka marka qofka xididkiisa wuxuu u fahamsan yahay waxaan rabaa marka inaan soo qaato dhowr sheeko oo aniga xoogaa ila muuqatay in idin la wadaago oo ku saabsan dhinaca dhaqanka sababtoo gabadha haddaysan aqbalayn ama aysan ogeyn wiilka hooyadii iyo aabihii iyo walaalihii inay ula dhaqanto sida iyada kuwii dhalay ama aysan u fahamsanaynba dhaqankaas xoogaa waa lagu kala boodaya sida ula dhaqmayso sababtoo waxaa la rabaa in labadaba wadaajiso xurmada iyo qiimeynta iyo sharafta inay wiilkana hooyadii iyo aabihii siiso kuwii iyada dhashana oo ka timidna ay siiso wiilkuna sidoo kale laga rabaa inuu xurmeeyo gabadha waalidkeed iyo sidoo waalidka asagoo xurmeeyo inuu xurmeeyo la rabaa haddaan dhaqanka halkaa laga hagaajin oo sida aan ku nimid ama awaawiyaashana ama aan ka soo gaarnay aan loo xurmeyn dadka dhaliyada ah ee ka soo jeeda qoyska arrintaas waa xumaanaysa dhaqankana waa xumaanaya waxaana tusaale inaan dhowr inaan soo qaato waxaa kaloo lagu kala duwan yahay habka loo macaamilayo oo qoysku u macaamilayo dhaqan ahaan su'aalaha la isweydiinayo waxyaabaha maaragtay maxaan ku yiraahdaa reerka dhexdiisa ka dhacaya habka looga dhaqmayo waxyaabahaas oo dhan in aad la isaga fahmaan loo baahan yahay waxaan rabaa dhowr sheeko inaan soo ninka gabadha uu guursaday dabcan dee ehel bay leedahay waxa bay leedahay dad bay leedahay waa la isu imaanaya waa dad sheekaynaya oo maxaan ku yiraahdaa ii sheegeen maxaan ku yiraahdaa ii sheegeen hawshii maxaan ku yiraahdaa ii sheegeen ka xiriiraya way
marka waxaa dhacday in uu maxaan ku yiraahdaa gurigii uu wiilku dajiyay gabadha ay qaraabo niman soo boqdaan. qaraabadu ma ahan gabadha wiilka la dhashay waa ilmo adeer. sidana gurigu dadka xididka meel bay ku leeyihiin ay ka fariistaan. dhaqan ahaan Soomaalida waxay ku leeyihiin guriga meesha fadhi qolka fadhiga ah banaanka in lagu la hadlo qolka fadhiga la fariisiyo lagu soo dhaweeyo. qolka chiefka wuxuu khaas u yahay haweeneyda iyo ninkeeda. waxa dhacday markii ninkiiba guriga dhowr jeer wuxuu yimid dhowr nin oo gabadha qaraabo dhow la ah ama ilmo abti ha ahaato ama ilmo adeer ha ahaadaan waliba ilmo adeer bay ahaayeen oo qolkii chiefka ay ku wada hadlayaan. qolka chiefka waxa ku jira maaha marka nin maaha waa dhowr nin xumaana may sameeyeen laakiin inay qolkii chiefka galaan oo gabadhii walaashooda qolka inta u galaan ugu sheekeeyaan iyaga normal bay u ahayd wax caadi ah u ahayd. ninkan gabadha qaban wuxuu arkay in makaankaas uusan ahayn makaankii ay lahaayeen makaankoodii uu yahay meel kale. dhowr jeer hadduu arrintii arkay ayuu gabadhii la hadlay wuxuu ku yiri wiilashan walaalahaaya maad u sheegtid maaha meeshaan qolkan chiefku qolkii naga dhaxeeyay dadkii aniga dadka ehelka oo qaraabada ah waxay leeyihiin qolka chiefka waxay leeyihiin banaanka kuraasta taala in lagu soo dhaweeyo laakiin qolkan chiefka anagu khaas noo yahay mana aqbali karo in maalin walba dad ehel oo qaraabo aan ugu imaado arrintaas way dhibaysaa iga ridaab ku yiri. gabadha ku soo celisay waxay tiri wareer ma macquul maaha in maaragtay dad nimanka aan waxa u sheeg waa ceeb waa ila dagaalamayaan waxay leeyihiin anagu naga shakiye dhibaato abuurayaan. طبعا way taqaanaa laga yaabaa asagii marka halka ma qiimeyn wuxuu yiri maya sida saxda waxa weeyna u sheegtid makaanka ay guri ku leeyihiin maadaama ay soo hooyada iyo aabaha dhaleen ay ehel yihiin oo adeerka u dhalay u sheeg booska ay guri ku leeyahay ka fariisto dhowrkan. gabadhii markii dambe u sheegtay waxa laga yaabaa xoogaad habkii ay wax u gudbisay inuu khalad ahaa laga yaabaa laakiin arrintii markay u sheegtay tiri ninkii baa diidan guriga inaad soo gashaan dabcan waa sida hadalka u muuqday nimanku aad u caroodeen iyadoo ma oran war gurigan gurigeygii weeye naga daayo halkaan nagii wax may kale xoogaa kalamay bas maslaxin oo aqligeeda ma isticmaaleen xoogaa waxaad moodaa arrintaas khalad inay u gudbisay khaladkina khalad ba ka dhashay. nimanku waa caroodeen waxay yiraahdeen gabadhii anaga walaalkii ma nooga shakiyay ma qabayaba waa inuu furaa hadduu yiri gurigan qolka ma nimanku maxay ugu jiraan waa naga shakiyay Soomaa ma qabayaba bal fiiri khalad labaad bay sameynayaan marka hore ma ahayn makaankoodii meeshay galeen markii labaad la saxayna khalad bay ka fahmeen. waxa dhacday marka inay ninkii inta u tagaan dhahan niyo gabadhan doonayna noo furto gabadha ku dhalay maaha walaalkii abba ma waa qaraabadii waa ilmo adeer wuxuu war gabadhan anigu shalay baan guursaday eheli qaraabi iyo dad baan ka guursaday aabaheed baan ka guursaday haddii aan furayana dee ama iyada ka imaanaysaa ama waalid bay ka imaanaysaa adinku ehel baatiina booska leedin raac maya anaga waa nacayday waan xurmad daraysay dhibaato nagu abuurtay ma qabaysid naagtan waa inaad furto haddii kale isdilayna ayaar bay saga qaato waxay warid hadda iga tagay qeylada iga tag waqtigii dalka fowda ahaa bay ahayd hubaa la soo qaato ninkii baa la weeraray lama dilina waa sigta mar labaad baa haddana suuqa inta lagu arkay haddana la weeraray ninkii waa isdifaacay oo nin buu ka dhaawacay nimankii markuu sheekadii suuqa gasho ninkii maxaa lagu haystaa saasaa lagu haystaa waa ishoyay ninkii oo dad wuxuu qaatay waardiye ah wuxuu waardiyaha ka qaadanaya waa gabadhii dadkii qaraabado ka asagoo magaalada dhex maraya yaa nimankii hubeysan weerar ku soo qaaday asana dhowr wiil baa la socota hubeysan waardiye ka waa la isxabaday nimankii weerarka soo qaaday nin baa ka dhintay geeri baa tiin marka geeri markay timi wiilashii waa ninkii meel u dhow oo niman waardiyaha joogeen oo guud ahaan ay maaragtay dabcan isku reer yihiin ayay magangeliye u galeen maadaama laga tira badnaa oo ay inay dagaal galaan diyaar aysan u ahayn. nimankii ay maganta ugu galeen Soomaalidu xeel adag bay lahayd hubkooda soo gurteen waxay dhaheen nimankan gurigan soo galay anaga maanta noo ah ma taabanaysa waa la isku fahmi waayo bartii baa dagaal hor la ka dhacay waxa dagaalamay qolada martida loo ahaa iyo nimankii wax soo weeraray nin kale haddana ka dhintay qoladii wax soo weerartay oo dulmiga sameynaysa laba nin bay maraysaa makaanka guriga ay ka leeyihiin ha laga dego laba nin bay maraysaa. arrintaa markay dhacday hadda waa dhamaatay markaa in wiilkii gabadhii si xorriyada waddanka u joogaan waa la fakaray waxa la maxaan sameynaa waxay noqotay in waddanka laga saaro way dhici kartaa hadda inay maqlayaan in waddanka laga saaro oo waddamada aadaan loo raadiyo ayay noqotay
maxaa keenay marka dhaqan xumaa keentay waxaa keenay marinkii la lahaa oo laga leexday baa keenay dhibaatada waxaa keentay garasho la'aan la garan waayey booska gurigaas oo ehel ku leeyahay yaa keentay waxaan u joogay baa anigu oo hadda aan qofna ii warin waxaan kaloo rabaa si dhaqanka aan isaga ilaaliyo inaan sheeko yaro qosol ah oo waxoogaa yara maad ku jirta laakiin anigu aan ujeedo ka leeyahay aan ku soo kooba dhinaca dhaqanka sheekadaas waxay ahayd burburku markuu dhacay dabcan dawaad garanaysaano shaqo la'aan baa timid ana suuqay galeen oo tabac iyo adduun iyo dhaqaalay abuurteen marka gabar iyo wiil baa isfahansaday wiilku shaqo ma hayo nin shaqaystana maaha nin xoolo haystana maaha gabadhana xoogaa xoolay haysata marka waa markuu shukaansaday oo ay isfahmeen waxay tiri anigu waxaan kaa rabaa xoolo haddaad haysan anaa reerka waa xoojinaya hadday guri tahay anaa dhigaya hadday dhuuni tahay anaa keenaya hadday arad tahay anaa ku arad bixinaya laakiin adiga hal shay keliya lagaa rabaa halkaa shay haddaad heshiiska ila gasho gurigan anaa dhisaya anaana aqalkayga dhisanaya waxba kaama rabo oo muxuu yahay waxaan rabaa bay tiri aniga habeen walba afar wareeg inaad gashaan kaa raba afar wareeg inaad gasho haddaad saxiixda heshiiskaas arrintaan la dhammayn afar wareeg keliya ka badan baan geli karaa gabadha waxay la degan tahay hooyadeed oo sodoha ayay la degantay waa hooyadii oo qol degan gabadhaan oo qol degan oo ninkaan ku qaban sheekadii waxay yaan socotaba dee bini'aadanku qofku electric kuma shaqeeyo waxay dareentay in awooddii ay soo yaraanaysa ninkii asna waa ka hor timid arrintaas marka wuu fakero wuxuu yidhi nin balcaawa aad khiyaamo samaysid oo maaragtay sheeg arrinta aad wax khalad samaysid iyaduna difaac bay ku jirtaa waxay leedahay ninka awooddiisu waa yaraatay waa aragtay inuu sii tabardaraynayo difaacay ku jirtaa heshiiskii inuusan ka bixin bay diyaarta wareeggii saddexaad markii la galay yuu yidhi afar iyaduna waxay tiri labo kiis baa laisku haystaa bog afar iyo laba la isku qabta marka waa la murmay murankii waxaa ku soo baxay marka ilaa hooyada la degan cid kale ma jirtee duqdaa ku soo baxday sodohda ahayd waxaan ka hadlayaa waa dhaqan wanaag ha la ogaado sodohdii markay soo baxday lagama qarsan kiiskii iyo wixii la isku hayay waa loo bandhigay xaakim bay ka noqotay waxaa la yidhi saasaan ku heshiin saasii saasaan dhacday wiilka xoyaan hawsha waa dhammaysta aniga heshiiska waa ka baxay gabadhina waxay tiri labaa dhiman heshiiskii kama soo bixin habartii marka xaakim bay ka noqotay kiiskii oo waxay tiri nima say u dhegeysan waxay tiri waa idiin ducaynayaa horta aniga wixii aan go'aamiye ma la yeelaya laakiin ilaa hooyadii bay hooyada ha waa yeelaynaa wali maandhooyina waa weeraraysan inta wax dhan iska dhaaftaan hadda hala soo bilaabay tiri hadda wax dhan ma ka baxa sheekada hadda soo bilaabay sheekadaas hadda soo bilaabada ah macnooyin fara badan baa Soomaalidu maamadaha ka fasirataa laakiin aniga meeshaan uga jeedo waxa waay ka warrama sodoh xaakim ka noqotay gogashii gabadheeda sodoh loo xaakim ka noqotay go'aanna ka riday gogashii gabadheeda dhaqan wanaag ba maya meelaha qaarkood sodoh iska daa ma wada degaanba gabadha la qabo iyo ninka qaba iyo reerku ma wada degaanba inaad aragto sodohda xataa aad kuu timaado xataa waqtiyada gurigaha soo gelaysa meelaha qaarkood ama qolkeeda gelaysa ama banaanka u baxaysa inay ku aragto kaliya diidanta iska daa in laga hadlo waxyaabaha ka dhacaya gogosha in laga sheekeeyo ama ay xaakim ku noqoto meelaha qaarkood maba arkaysidba dadka meelaha qaarkoodna xaakimkaas ayaa noqday maamadaas ka dhacdayo maandhooyinu hadda hala soo bilaabo go'aanka yaa soo dooridi marka waxaa la rabaa qofka aad rabtid inaad guursatid dhaqan ahaan guurka wuxuu ka aaminsan yahay iyo meeshuu ka joogo inaad fahamtid si aan hadhowta dhaqan xumo u dhicin si aan xadgudub xagga dhaqanka qoyska uusan u dhicin si aan la isugu wareerin waa in dhaqanka la iska fiiriyaa oo qofkan wuxuu ka aaminsan yahay xididka iyo xigaalka iyo fikraddu ka qabo waa in qofba qof kale uu qiimeeyaa waayahay aad iyo aad u mahadsantihiin annagoo mar dambe kulmi doonna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh